الرحمن الرحيم كلاتي وأنا وناكسنا خيرتها هذا نقد دعوتاي مالك صدفها الدنيا كجوكتان ومركلة إيه برنامج كي مدرسة كارسن أو تيتو صوب دعوتان كارسن تي في استوديو سماعات لندن برنامج كي مدرسة كارسن يتطوات كان وحنو جعلها دعوة لنا نقص وقابله موضوع إن بدن بشوية الصومال تقول أهم ملا يشوفان أي سعادة وهذا الهين وعرفتكم سابسن لو رجستا هودا صوماليا يهجدا حاجة إركا أو إن بدن دولة فدرالك الصومالية أي وقت بدن كليسي سيدي أي مركلة قعدتها وقولي جلهايد حاسية شردك كله وحى السعودية وده هذا ودحيي حاجة هي هودا مركلة الصوماليان إيه صوماليا موضوع عاص أصلا نكور قانون وجود أهم بشيء نصور نفتي ديسمبر أي سير رسمية دولة فدرالك الصومالية أي وجود واقعي مقالة مقدشو إن أي لا wareegtay hase yeeshee arrinkaasi ilaa ay hadda waxaa dacwada ka gudbiyay oo wafti u gudbinaya magaalada Toronto ee dalka Canada wafti ka socda Somaliland oo arrintaasi iyagu dacwad gaara ka gudbinaya halka ay salka ku hayso sidoo kale barnaamijka madasha kalse waxaanu jecelahay inaynu qodobo kuwaas aan ka fogeyn aynu ku qaada dhigno oo ah safarka madaxweyne Farmaajo uu ku marayo Puntland iyo deegaano kale oo hoos yimaada iyo dagaalka ka socda tukaraq oo sool gobolka soolada dabcan ay dhaahdo iyo guud ahaan xaaladaha isbarkan ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalka barnaamijkan madasha kalsan ay gar qayb galay habeenkan caawa Cornel Abdullahi Abdi Maxamed oo loo yaqaan Dule oo kamid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iyo dhanka bidix oo fadhiyo محمد عبد آدن رامبي أو إسقوا أفيانك حسبك ثلاثة تلك سمعنا هيا كل مية سوري وده الذين أدى يدي كم هنقيا مرخورة كسوق بك برنامجك وهجاك أنت صدقني إنه كوجودنا هرجع برنامج واحد شعل هاي أرمها طبعا عرب أنت بدن لقوا هياي بالشوين الصوماليات يرسو معنا باي أنت بدن أي أودك تاجين وحوي هكا يكون بيسي أرنتي هو الصومالية وإلا يهدا أموغدا إن مرن أو كتاجي سودو كوريل دولة بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا صاحبنا هالكي لفردي بيعاد صاحبنا فرسمي هالنا وحن كل سلام يا أمد الصومال مالك استيجوا وحن لا يهبي ولا أحسن أنت بركان كسرت ميعاد شنتي بيشي جولاي 2017 كي هذا عصور نافني دولة الصومالية وحاول كشيء أسرة كشيء إنه قاعد تقص ودكتور برنامج في ساداش هذا إن مدة كويس عشان كوي كده لقلوا رجعي نيروبي يا صديق أحد إلى ما هديس جولاي شنطة ذوي كده ب 2017 كدولة وحا أسر تقشيني مقدشة قسم سحرنتي ساداش هذا تاسيلو حنوم ملانا يا ما أنت تعدي دلمجرت هدي أنت كي استعمال له أمبرنا كم معمول لهاي أمبرنا كنترول لهاي هودي سومالي كي أما مالك له إنك كم مدن تاي إن ودك الله كأنه قال هن المقدس الله كأنه معاصمة الصومال الله كأنه أنا واحد هو يستعرن تاس أرنو وأنا سنة تاي أرنو جولستنة تاي الرشاد كصومالية دنوه ينقياس يهدي اللي يراد أدل ما صنت هاي أن أقصد دوي محمد عبد الرامي أصلا نشجعني أفيان كحسب الصومالي لان كل مية محمد سودو أنا أقول ما صنت ولا سؤال أنت إن وجود قليل واحد نوبه عنا إنه مركور حاجة باك جراوند ama gogoldhiga inuu sameeyno dadku siday u ogaadaan arrintan iyo siday ku soo bilaabantay iyo xilligii hawada Soomaaliya la wareegay hawada Soomaaliya la iskama wareegin laakiin waxa lagu wareegay Security Council resolution baa lagu wareegay 1994 resolution kaasoo tirsigiisu ahaa 954 kaasoo qodobadiisa 13 iyo 19 ay awood u siinayeen jamciyada quruumaha ka dhaxaysa inay maamulaan hawadii wadankii la isku oran jiray Soomaaliya iyadoo taasi ay keentay duruufo waqtiga jiray duruufihii wali way jiraan dawladda Soomaaliya kaligeed baa isku boqortay inay tiraahdo hawadii baan la soo noqonay iyadan awood u lahayn iyadan capacity aan lahayn iyo awood ay kula soo wareegto toona waynu intaas oo dhan hay'adda maamuleysay meeshan ay iyagu isku boqorayeen may joogin hay'adii maamuleysay qaramada midoobay wax lagu wareejiyay may jirin dhisma yar oo meel laga dhisay weynaarkeeno ay yidhaahdeen halkan baanu ayaan ka samaysanayna yes dhismahaas Somaliland 1990
sagaashan iyo 96 ayay samaysatay dhismahaas towerkeeda iyo waxeedoo wax weyn oo ku jiraan ma jiraan laakiin annagu somalilan ahaan waxaan u aragnaa arrintaasi inay ahayd arrin deelqaaf ku ah wada hadalladii somalilan iyo soomaaliya ay wada galeen waxaan u arkaynay arrin gardarro iyo daandaansi cad iyo duulaan lagu soo qaaday qaranka somalilan iyo madax banaanidiisii marka arrintaasi waxaan u aragnaa inay tahay arrin ooda u rogaysa ama ku khasbi doonta haddii aanay soomaaliya aanay ka wantoobin tallaabooyinkan xagga guracan ay u qaadaysa dawladdan aan aada moodid inayna experience ayna lahayn ama socod baradka ahi ay u qaadayso inay khasbayso in hawada soomaaliya adduunka laga xidho way cornele waxa yara waxaan jeclaan su-aalkaa weydiiyay halkaas waxaynu ka warqabanay wada hadallo waddanka dibadiisa hadday Canada noqoto iyo hadday Nairobi noqotoba inta badan ka dhacayay oo ay marka qaarkoodna ay dhexdhexaadinayeen qaramada midoobay iyo wadamada aan arrimahan shaqo ku leh maamulka hawada Soomaaliya Somaliland mar inta badan qayb bay ka ahayd maadaama hadda dawladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi u shaacisay in iyadu gabi ahaanba gacanta ay kula wareegtay shirarkii muddooyinka inta badan socday gacmo daaris bay ahayn miyaan la odhan karin maya lama oran karo shirarka waa soconayaan dib u heshiisiinta iyo sidii barnaamijkaasi laisla fahmi lahay waa soconaysaa dawladda awadaysa saan is leeyahay qiyaastii waa la socdaa shirarka Istanbul iyo armiya labada guddi loo saaray oo Turkiga ay fadhiisanayaan waa la soconaa laakiin tan labaad waxa waaye arrintan in hawada Soomaaliya ee dawladda la wareegto ma ahan hadda mid bilaawata ma ahayn dagaalkeeda muddo dhan lagu jiray caawa ma dhigi kara taawarkaas waa iska dhisnaan jiray oo haddana sidii u dhisaan dhihi ma karno waa arkaynayo in la tijaabinayay sideedaba taawarkaas dan uma aha dad shisheeye dan uma aha dad Soomaaliyeed dan u yahay waddanka Soomaaliya ee walba waxa waaye Muqdisho ay ahaan jirtay meesha taawar ku yaal hadda waxa waaye qaybaha kale iyo waxay u baahan tahay waxaa jira qaybo badan ay u baahnaan kartaa amba saldhigyo yar beesa dhici karo in taawarka uu sii yeesho meelaha ay ka goodo oo muhiimka ah horta baalkan waxa waaye waxyaabada dawladda iska leh federaalkaas dawladda Soomaaliya iska leh waxyaabada waxa iska leh maamulada jira amba dadka kale ma taqaanaa wax nagala dhaxayaan kulli anigu magacay doonaan ha yeeshaan ma doonayo inaan qolo wax ka sheego ma rabo xaq ay u leeyihiin wada hadallada in la wado xaq ay u leeyihiin haddii shaqaalihii qaarkood u baahan yihiin haddii technician qaarkood u baahan yihiin anigu muhiimadda waxay tahay laguma helin oo saldhigaani laguma sameynin faataxa laguma sameynin dagaala loo galay waa la socotay 9 container oo Nairobi loo waday oo Akawa loo waday shirkadda la dhihi jiray maamulin jirtay aase qalad Muqdisho ku keentay sidii gacanaha loogu dhigay waa lagu fara adeegay ugu dambeystina waa laga guul keenay in Muqdisho ay noqoto meesha base-ka loo dhigayo oo la sameynayo indhooda la tijaabinayay markii la sameynayo saldhigan sidiisa mid ku cusub maaha dalka waa jiriyay laakiin burburkii 91 uu raacay inkastoo ay kuwan hadda la keenay ka casriyeysay kuwa hore maanta waxaan is leeyahay saddex qaybood lacag container waxa ku baxay lacag badan ku baxday saldhigaas lagu sheegay hawada Soomaaliya hadda la qabanayo la dhisa container 9 container arrimaha ka wada hawada heesaadaasha qalabkaas waxa waaye air navigation system waaye oo Soomaaliya isticmaal lahayd waxa ku baxday lacag gaarayso 4 milyan oo dollar ku baxday lacagtaas waa lacagtii hawada Soomaaliya loo ururin jiray container-raas nasiib wanaag ay xamar ku soo garaagaarkoodu xaqeenu leeyihiin in qaybtood laga sii wada hadalka laga sii Cornele adoo iga raaliya oo ku sii walaal xadiga adoo iga raaliya marka la eego Somaliland iyo Soomaaliya wada hadalkii socday saligoodu marka maxay ahayn baa loo oran karaa haddii dawladda marka hadan su'aasha ku haddii dawladda Soomaaliya ay iyadu iskeed uga dhawaaqday kaligeed inay la wareegtay Somaliland xagee ka soo gaartay marka Somaliland ilaa hadda la joogo wada hadallo socda dawladda weyn Soomaaliya iyo Somaliland waati socod jireen haddana sidii u soconaa wada hadalladii wixii la isku afkarto waxa waaye saldhigu waa badan yahay qaybo badan oo yeelanaa local oo yeelanaya waxyaabo badan oo yeelanaya anigu lama in meesha ku agtaa ma wada hadallada inay soconayaan aaminsana weli dawladda laakiin container-radan waxay ahayn container loogu talagalay ma ahayn faataxa lagu helo ma ahayn container ilaahay gacanta ummadda Soomaaliya u soo celsheed intay Nairobi alaabtan oo leedahay amba Ethiopia nalka xukuumada halkaas gacanta ku dhigayna nasiib wanaag gacanta ku helo ogeeyay si qaldan airport Muqdisho loo keenay sidii dawladda ku qabatay kuna dhisooyaysa ilaa hadda hawsha qabadooysa marka Somaliland iyo Soomaaliya hadda ay walba laba walaalayahay wada hadalada la soconay ilaa hadda wada hadalada soconayaan qiyaasaya wata dawladdan koonfurta Soomaaliya markay ka hadlayso maamul goboleedada waa inaynu fahnaa maamul goboleedadu shanteeda maamul goboleed iyadu ay dhisatay
inay yihiin somaliland waa qaran ka madax banaan shantaas oo in la isku khalday inaynu halkaa kala caddayna ayaa muhiima horta waynaynu eegnaa horta laba wax waynaynu eegnaa dhinac waxaynu ka eegaynaa heshiiskii istanbul ee somaliland iyo soomaaliya ay wada galeen dhinacna waxaynu ka eegaynaa hawadan iyo siday u shaqayso horta hawadu laba qaybood bay u kala baxday qaybna waa joogga hoose qaybna waa joogga sare waxaana ekaawa ay maamusha waa joogga sare weeyaan joogga hoose somaliland hawadeeda jooggeeda hoose iyadaa maamusha diyaaradaha noo yimaada liisamadooda soomaaliya ma bixisay annagaa bixina kuwa xaggooda taganaya dabcan iyagaa bixiya annagu ma bixino marka waxaa laga wada hadlaya waa joogga sare weeyaan joogga sare annagu maanta awood waanu leenahay inaanu la hadalno diyaaradaha hawadaa sare maraya waanu la soconnaa waayo qalabkeedi iyo aqoonteediba waanu haynaa laakiin waxaanu ilaalinaynaa waxa weeyaan inaanu violation ama xadgudub inaanu dhicin okay dawladda soomaaliya ma garanayo ciddan ay la hadlaysa cidda ay tahay iyo dadkan ay soomaalidan ay la hadlaysa koonfurta soomaaliya la hadlaysa inaan ahayn dad fahamsan habka iyo nidaamka waxaana ay u shaqaynayaan security council resolution baa halkan yaalla hawadii soomaaliya lagula wareegay 4/9 memorandum of understanding ay ekaawiya dawladda muqdisho ay wada galeen ma burin karayaan UN security resolutionkii meesha yaallay qaraarkii laga soo saaray jamciyadda quruumaha ka dhexaysa dib umay fadhiisanin oo qaraarkii soomaaliya hawadeeda lagula wareegay wax laaliyo waxay kabedel ay ku samaysay haba yaraatee ma jirto marka anigu meeshan israelka iskaga daadinayaan ma garanaya anigu waxaan u arkaa inay tihiin dhibaatada gudahooda ka jirta inay doonayaan indhaha mujtamacooda inay ka qariyaan dhinaca kale iyo diversion ay u sameeyaan ay yidhahdaan somaliland baynu isaynaa taas waa midda kale diyaaradahan hawada maraya insurance bay ku marayaan airportka hargeysa iyo airportka berbere labadaba waxay waa international airports weeyaan hay-adaha adduunka ka register garaysan dawladda soomaaliya hadday tiraahdaa anigaaba la wareegay ma damaanad qaadaysa dawada diyaaradda hawadaa maraysa ee emergency ku yimaada emergency landing u baahan amarkeeda hargeysa ma ka shaqaynaya iyo berbere ayna ku fadhiistaan su-aashu waa maya taasi waxay soo dadejinaysaa in shutdown lagu sameeyo la xidho hawada soomaaliya adduunkuba uu ka wareego hawada soomaaliya inaanu soo gelinin taasina inay si toosa markiiba u taabanayso weliba u taabanayso dadka koonfurta soomaaliya markay diyaarada imikaba marka hargeysa la tagayo iyo marka muqdisho la tagayo qiimaha lagu tagaa waa debel weeyaan marka muqdisho la tagayo kaasi waxa uu noqonayaa inuu qofka soomaaliya tagayaa inuu 5 kun ku tago marka dawladda maxamed adoo iga raaliya waxaan jecelahay isaan weydiiyey korneelkaba wada hadallada soomaaliya iyo somaliland usoo socdo arrimaha hawada iyo hagisteeda inta badan aan u idin dhexeeyey haddii markaa sidaas aynu hadda shaashadaha caalamka iyo tviyada aynu ka arkayno in si rasmiya dawladdii soomaaliya ay ula wareegtay beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd oo la isugu yimiday oo si rasmiya loo cilaamiyey wada hadalkii somaliland meel cidlaa kusoo dhacday miyaan loohan karin midaynu kala saaro horta beesha caalamka dee cid joogta maynaan arkayno beesha caalamka hay-adii kaawi gacanta ku haysa meesha may joogin cid kaloo meesha joogto oo international ka socoto laleeyahay maanta halkan baa soomaaliya wax loogu sameynaya ma jirto horta qodobka inaynu saxno xogayaha qaramada midoobay ee somaliland iyo soomaaliya uqaybsanay shalay hargeysu joogay waxa uu sheegay sidaasaan sheegayo inaanay jirin cid guulaysanaysa iyo cid guuldarraysanaysa hawada soomaaliya iyo somaliland labada wadaneeyayaal bay ka yihiin hay-adda ekaawa somaliland inay go-aan wada gaadhaan haddii ay go-aan wada gaari waayeen afkiisa waxa uu ka sheegay inay noqonayso khasab noqonayso in airspace-ka soomaaliya shutdown laga dhigo la xidho ma garatay taasi horta halkaasaynu ku xidhayno arrinkeeda halkaasu taagan yahay tan kale shirkii somaliland iyo soomaaliya ee istanbul khaasatan kii istanbul ee lagu heshiiyey in guddi isku dhafa la sameeyo oo xaruntooduna hargeysan noqoto heshiis laba dawladood wada galeen baahay heshiis halkaas waa waxyaabaha nu aragno dawladdan muqdisho ee imika ee dhinacay u socoto iyo dhinacay ka socotaba aanu international community iyo adduunyadiiba aanay fahamsanayn confidencega lagu qabi karo heshiisyada ay galaan ay ka mid tahay heshiis baa la galay heshiiskii waanu ka baxnay kamaanaan bixin iyagii unba isboqray marka taasi waxyaabaha weeyaan lala yaaban yahay ee confidencega xitaa dawladdii ka horreysay sheekh shariif xasan sheekh waxyaabaha ay kaga duwanayd iyo characteriska ay kaga duwan tahay waxa weeyaan ama hal la wada joogo ama hal la kala maqnaadee waxay isku dayeen inay dhisaan bal confidence iyo is-aaminaad ummadda dhexdooda inay ka sameeyaan waxyaabihii aas-aaska uu ahaayee lagu tijaabinayay ayay ka mid ahaa heshiiskaasi inay gaari karayaan ee xejin karayaan heshiiska ay gaadheen taasina waxay imika ay caddaysay in wax allaaliya wax koonfur
lala way geli karaa oo lagu maxamed raadin karaa adoo ga raale heshiiska hay-adan hadda ilaa 91kii 1990kii gacanta ku haysay ee ECOWAS yes iyo Somaliland wax heshiis wada galeen u jiraan heshiiskoodu waa heshiiska bariga hore la wada galay inay tababarka ay siiyaan ilaa imikana sideedii buu u socdaa heshiiskaas wax laaliya wax iska bedelay waxaanay yani ay assurance ku siiyeen Somaliland wax aan heshiis lagu ahayn inaan la wareejin doonin marka anagu kaanu taaganahay waxa weeyaan ilaa imika wax la wareejiyay ma jiraan wax la wareejiyay ma jiraan meel laga maamulo ma jiraan maanta halkoodii baa laga maamulaa Soomaaliyana keedii gudaha ay maamulataa Somalilandna keedii gudaha way maamulataa waxaan ku yiri anigu wax dacwo hadda aan qabno haba yaraatee ma jirto waxaan ka hadlayna waxay tahay dhawaan 5 July 6 July saldhigii laga sameynayo cusbaay akaaw maamuli jirta Nairobi ee la soo wareejiyay hawadii Soomaaliya markaan leeyahay Muqdisho ma aha goboladan ma aha waa dhamaan Soomaaliya diyaaradaha ugu badan waa soo maraan maanta sideedaba muhiimaddu waxay tahay markii la soo wareegayo saldhigaas aad arkaysid hawada 3 arrimood ayaa looga baahan yahay dawladda Soomaaliya looga baahnay waa in qalabka la helaa waa in shaqaale loo tababaray ay joogaan iyo waa in shuruucda la dhisaa mar haddii qalabkii la helay waxaan u malaynayaa qalabka hadda communicationka waa ugu horeynta waxaan dhinaanayo raadaarka hadda waa la diyaarinayo isla arkiisa meesha laga furaayay saadaasha hawada iyo waxyaabahaas calaa kulli xaal arrintan waa arrin bilaaw ah muddana waa soo socotay arrintan Sheekh Shariifka soo waday Xasan Sheekha soo waday hadda waa gabagabo ilaahay wuxuu gacanta noo geliyay in saldhigga maanta inta laga furo magaalada Muqdisho hawadii Soomaaliya heshiisyana waa jiraan oo hadda qolo kasta heshiis waa leedahay heshiisyada sidii u soconaa sidaa isleeyahay laakiin hadda waxa waaye arrinta inta Nairobi arrinta gacanta ku weyn lahayd Nairobi la ka xukumi lahay amba hawadii Soomaaliya laga kontrol Nairobi haddii ilaahay gacanteena soo geliyay qalabka containerka ayo socdo 9 container ku jira faataxna kuma keenin markii alaabta la keenayo Muqdisho la keenayo iyadoo Nairobi loo wadaa transitkii la qalday Muqdisho la keenay sidaas gacanta loogu dhigay Soomaalida waa ku farxday Soomaalida lama qanci karayo 90% aan ka hadlayna inta soo artay ka hadlayno ummadda ugu muhiimsan waxay tahay wixii ummadaha kale nagu leeyihiin Somaliland waa lahayn wada Soomaaliyeed waa anagu colaad gaar ah u qabno ma jirto gid waxaan aaminsanahay in Soomaali isku nahay waa dhici kartaa inaan kala sheeganayno ambis magacaabaan waa dhici kartaa taasna waa iska dhamaan doonta xilligeeda iyo waqtigeeda taariikhdeeda leedahay laakiin arrinta arrin la soo waday haddana waxa waaye meel fiican ka bilaabatay waxaan rajaynayaa in akaawadi laga xukumi jiray Nairobi hadda ka bacdi Muqdisho laga xukumi doono Somaliland walaalahan waayo waxay lamid yihiin maamulada kale lamid yihiin xaqooday leeyihiin wada hadaladana waa leeyihiin waxaan u maleeyaa wada hadalada hore loo sii wadayaan isleeyahay waxaan arkaa horta meel ka dhac iyo dalqaaf baan arkaa inaad tiraahdo Somaliland waxay la mid tahay maamulada gacan ku rimiska ay Soomaaliya ay samaysatay oo noo ogol lahay maamuladooda dawlad kale inay yihiin siday doonaan inay u dhaqmayaan laakiin Somaliland maanta halkan kuma gelinayno fakadkeeda iyo jiritaankeeda iyo waxay ummadaasi ay qabsatay inuu yahay wax dawladan maamulin oo aanan isaqoonin ay iska sheegan karayso walaalkay waxaan arkayaa waxaan soo jeedinayaa arrinta inuu ka waantoobo ta kale meesha ku jirta waxa weeyaan mar waa qiiro yaro iska jaban oo la leeyahay Kenya inuu kala soo wareegaynaa wadan shisheeye inuu kala soo wareegaynaa hadda la soo wareegaysan waxna anagu waa masiirka iyaga weeyaan waa masiirka ummadda reer Somaliland weeyaan waxa weeyaan sida dhulka iyo badda iyo cirku isku sibay nooga gadmaan marka in qiirada lagu istiraadaan qiirada ku qaato halkan baynu ka soo wareejinaynaa iyo halkan baynu ka soo wareejinaynaa taasi wax dhacaya ma aha waxaana moodaa consequence-ga ka imanaya waxan raadka ay yeelanayso inaanu way maxamed markaad way arrintan haddii hay sida hadda aynu arkayno haddii ay ku hirgasho oo dawladda federaalka Soomaaliya ay arrintii ay iyadu gacanta ku hayso aanad sheegto ka dhawaajisay in laba qaybood joog hoose ee hawada iyo jooga sare ay u kala qaybsan tahay joog hoose bal Somaliland laga yaabo in awoodeeda leedahay jooga sare ee diyaaradaha dul maraya hawada Somaliland awood intee lag bay u leedahay inay ku carqalayso diyaaradaha aan dul maraya laga control Muqdisho walaal jooga sare iyo jooga hoose ba diyaaradahan markii ugu horeysay la qaadanayay waxa wanaagsan in la fahmo maxaa loo qaatay bariga hore waxa loo qaatay waxa weeyaan raadaalka Hargeysa yaaliyo kii Muqdisho yaaliyo labaduba diyaaradaha hawada maraya intaas oo boqol oo qof sida mid waliba uu goonidiisa ula hadlayay kaasoo keenay inay pilotada diyaaradaha ay wada yiraahdaan waa riski annagu ma qaadanayno in Hargeysa noo soo hadashay tiraado hawada yadii baad ku jirtaa waa inaad xagga iyaga ka bixisan Muqdishona ay jirtaa haddii kale mid waliba ay leedahay waxbaanu samaynaynaa marka taasina waxay keentay markiiba inuu caymiskii diyaaradu uu hawada galay sidaasna si loo dhimo
khasaarihii ay tani keentay tii bay ku noqonaysaa tii markay ku noqotona waxay keenaysaa in hawada soomaaliyaba meel la isku haysto ay meesha ka noqoto waxaan usoo jeedinaya dawladdan koonfurta soomaaliya somaliland iyadu waxeedu waa u cadyihiin 3 option oo kaliya meeshan ay somaliland ay ogoshahay inay gorgorrada ay ku gasho inay la yidhahdo waxaa la yidhahdaa FIR waa flight information region oo kaanu doonaynaa inaanu helo inay sii socotay kii security mandate-kii security council solution-kii ahaa oo ay kaawaya hay-adda dhexe ay qabato inay soomaaliya ay kusoo noqoto miiskii wadahadalka heshiiskii la galay ee istanbula sidiisi loo fuliyo oo la keeno xaruntooda hargeysa intaa wax ka dhexeeya ay somaliland gorgortan ka gelaysaa haba yaraatee ma jirto waxaad moodaa inuu iga eedeynayo saaxiibka dhinacna iga eedeynayo isla markaan inuu leeyahay moodaa koonfurta soomaaliya leeyahay moodaa hadduu dhihi lahay soomaaliya hadduu dhihi laha xataa anigu way eedeyn kariyaa markaas koonfurta soomaaliya markuu yihahdo waxaad moodaa inuu wax kala jijibin oo kala yara ani koonfurta soomaliya ma yihahdo soomaaliya aan nahay dawladda soomaaliyeed aa la yihahdaa dawladda hadda xamar joogto caasimadda u tahay waxaan jeclaan lahay walaalkay inuu hadalka xoogaa dhinaca kale udhigo oo yihahdo dawladda soomaaliya yihahdo markuu ka hadlayo arrimaheeda wax kale ma jiraan markaad adigu tiraahdo somaliland baan ana odhanaya soomaaliya marka waxaan rabaa anigu arrintaas arrin lagu guulaysta inay tahay arrin sharafteeda la arki doono inay tahay jecla insha allah cabashada somaliland maxaa laga qaban karaa wada hadallada inay socdaan anigu waxaan aaminsanahay waa sax waa caban karaa dadku waa dad walaalo ah bini aadamka waa isqabtaan waxna waa si wax u rabeen wax waa isku bedelaan waxaa laga yaabaa inay rajooyin badan lahaayeen haddii amba spaceka wadanka xagga laga dhiga hargeysa laga dhiga aniga waxba kama qaba haddii hargeysa laga dhigi lahayo haddii puntland laga dhigo haddii muqdisho laga dhigo macna waxa waa safetigeeda meel lagu ilaalin karaa muhiima marka dawladda dhexan waxa waa waxyaabaha iyadu ay leedahay mas-uuliyadeeda waxaa ah waxyaabaha muhiimka kamid tahay oo saadaasha hawada iyo arrimaha hawada iyo ilaalitaanka iyo xaydka waxa waaye waa hawsha ay leedahay dawladda federaalka ay leedahay waa maahan wax kale ay leeyihiin ma jirto marka aniga waxay tahay wadahadaladii in hala wado oo wadahadaladii sidii hadda bashay usii socdaan wixii jiro daldaloole xumaana waa iska dhamaan doonaa haddii ala yidhaha way qodobkaas intay naga bixina dad wax ku darayso weli waxaad moodaa sidaan sheegaye dadkan reer koonfurta soomaaliya inaanay weli aanay fahamsanayn cawaaqibka ay waxaanay keeni karayaan ay jas isku maaweelinayaan hawaan la soo wareegnaya war hawadii waa haddii sidan ay kusii socoto way xidhmaysaa somaliland weli waxaa u furan ay idiin furtay leedahay miiska wada hadalka kusoo noqdaan haddii aad maroorsataan aad tirahdaan hawadii baan la wareegaynayo waa sidan karis xun iyana wax ku waxlaa baa layidhi ma garatay aad waa isku raacsana wadahadaladina wahag way laakiin ummadda loo qaban ummadda loo shaqeyna muhiim waay wadahadaladina si wadna waa muhiim wala shaarkayga haddaad igala baxday tirada aniga gacanta ku haysanaya in wada hadallo taasi ma shaqaynayso waxa laga hadlaya waa masiir ummadeed weeyaan oo ummadda reer somaliland ah wax si yar lagu qaadan karayo haba yaraatee maaha laakiin inay maskaxda furaan oo consequencega waxaan ka imanaya inay fahmaan baa wanaagsan way khadka telefoonka saan aan arkayo aad buu u badan yahay hal qof aan sii daynana insha allah dan mawduuca qodobka xiga ayaynu u galaynaa hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam waaye walaal khadka si toos ayaad ugu jirtaa waad la socotaa barnaamijka soo maha haa si fiican baan la socdaa walaali waan salaamaya saddexdiina soo dhow walaal adoo magacaa ku bilaabaya mawduucana gudagal horta waxaan rabaa wax yar aadiya inaan ka jiifto haye anoo salaamaya wiilasha meesha fadhiya muqdisho iyo maaragtay iyo hargeysaba waxaan leeyahay walaalayaal inta gaalo oo maxay kala macaamili lahaydeen sooma fiicna soomaaliya maadaama ay wadda hal dawladood ay tahay oo aysan dawlad kale la aqoonsan adduunka uusan aqoonsi siinin waqooyi in ay dadkooda ay macaamilaan nimanka soomaaliyeed intay dhihi lahaayeen ama ekawa noo hayso ama kenya noo hayso ama xagga ay ku celin lahaayeen inay ayagoo muslina 100% intay heshiiyaan hawadooda kulshiyaan waxooda lacagtooda qaybsadaan ilaa shalaba ekawa qaadanaysa lacagta dad soomaaliyeed lagama biilay wadanka dakhli kama soo gelaynin may ku heshiiyaan maadaama hal dawlad soomaaliya ka jirto intaas aan ku qaabilaa aad baad mahadsan tahay hadalku saan maraynayo su-aasha waxay toos ugu socotaa ama taladu maxamed somaliland yaan la aqoonsanaan international yaan la aqoonsanaan lakin de facto recognition bay haysataa aqoonsi waaqiciga haysataa imikana beesha caalamka way la xidhiidhaa oo toos bay ula xidhiidhaa marka taasi aqoonsi la-aan kama hadlayna waxaanu ka hadlaynaa walal waa masiir ummadeed weeyaan heshiis baa la galay istanbul baa la galay in hargeysa la keeno guddi isku dhafa la sameeyo wixii oo dhan dawladda koonfurta soomaaliya ka baxday marka maxaa lagu heshin karaya haddii kalsoonidii madaxdii hore ay dhigatay
labadii madaxweyne hore saxeexay labadii way ka baxeen annagu waanu ku adagnahay wixii lagu heshiiyey inay halkii kasii socdaan laakiin dawladda koonfurta soomaaliya marka iyadu isku caana shubtay ay tiri wixii baa anigaa la wareegaya muqdishoaan dhiganayaa raadaal dee annana waanu dhiganaynaa hargeysaanu dhiganaynaa inta ay kasoo noqonayaan ee caqligu oo shaqaynayo maxamed raalliya hadalkaa gabadha anoo sii tix raacaya dareenka soomaalinimo ee walaaltinimo ee islaamnimo ee ku saabsan ilaa iyo 1991 in hawada soomaaliya ay dawladda kenya ay gacanta ugu jirtay dhaqaalaha un ta iyadoo eka usoo maraysa laakiin kenya bayskeeda u ahaa haddii muqdisho la dhigo oo wada hadal oo ka furmo no dareenka muslimnimo ee soomaalinimo in hargeysa la dhigo ma mid diidaya hargeysa lagu heshiiye maxaa loo diidayaa ma markuu muqdisho jeegu dareen soomaalinimo iyo dareen islaamnimo uu yahay waa la heshiiyey hargeysa lagu heshiiyey hargeysa waa inuu yimaadaa haddii kale waa inuu meeshiisi joogaa maada anigu taas ma qabo waxaan qabaa marka walaalkay fikradoo qaba ah anigu haddaan waayo kenya ha tagto amba halkiyaa lagu hayo amba meelaha soomaaliya lagu hayo anigu ma qabo waxaan aaminsana maanta haddii hargeysa la dhigo iyo haddii puntland la dhigo iyo haddii kismaayo la dhigo dhul soomaaliya haddii la dhigo waa lagu aamini karaa nooc kastayta laakiin ma qabo fikradan ah anigu haddaanan waxaana cunayn qof kale iyo cun waxaan adigaa iskale soomaaliya iskale ama lacagta ka timaal ha noqoto ama shaqaalaha ha noqoto ama farsamada ha noqoto ama dadka isticmaalayaan ha noqoto waa soomaali waxay doonta ha noqoto somaliland maanta anagu ma diidan waa leen hadday go-aan maanta ay helaan aqoonsigooda gaarka ah iyo haddii kale aan maanta labadaba soomaaliya nooyihin walaalaheenu waa shar ma garata marka waaye waa laga fiican yahay in la yidhaahdo anigu meeshaan hala keen haddii la keeni waa in kenya lagu celsho waxaan ka jeclaa meel kasta soomaaliya haddii la geeyana waa ku aaminsana way mawduuca hawada haddaynu halkaa waxay ku hakino waxaynu ognahay safar ballaaran oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo uu puntland au ku marayo gobollo badan au marayo safarka kasokow somaliland dhankay kasoo galayso waxaan kamid ah in gobolka sool dagaalo maalmihii u dambeysay ay ka socdeen puntland iyo udhexeeya iyo somaliland deegaanka tukaraq ee gobolka sool oo labada dhinacba ay kala sheeganayaan maxamed wax yar oo hordhac haddaad arrinkaas iyo qaybta somaliland walaalo dagaaladaas annagu waxaanu aragnaa dagaalo ay dawladda soomaaliya ay dabada ka hurinayso waxaanu aragnaa faragelin iyo daandaansi cad oo dawladda soomaaliya ay kusoo qaaday madax banaanida iyo jiritaanka somaliland inuu yahay waxaanu aaminsannahay inay wada xidhiidhaan mawduucan labadii wiiga ugu dambeeyey socday ee hawada wasiirkii qorsheynta ay badhan usoo direen iyo arrintan farmaajo uu puntland ku yimi ee uu weliba markii hore qorshaha ay ugu jirtay inuu soo gaaro tukarada iyo qaybo kamid oo soolba inay ahaayeen faragelin cad oo lagu soo qaaday qarannimada somaliland jiritaankeeda iyo madax banaanideeda dawladda koonfurta soomaaliya ay kusoo qaaday maamul goboleedka puntland annagu waxaan u aqoonsannahay inuu kamid yahay dawladda soomaaliya wax dhibaato halkaa ka jiray may jirin xukuumadda somalilandna waxaa ka go-an inay xuduudaheeda ay sugto annagoon mar raba aan taaka kamid a dhulka soomaaliya aanan doonayn inaanu horay u galno lakin waxaanu doonaynaa inaanu xuduudaha iyaga aanu sugno inaanu nabadgelyada aanu ilaalino dadka deegaanada deganna waxaan rajaynayaa inay la shaqayn doonaan ciidamadooda inay la shaqayn doonaan isla markaasna soomaaliyana ay waaqaca ay usoo noqon doonto xadka somaliland iyo inta ay imika farafaraynayaan inay faraha kala baxaan cornel waxaynu ka warqabnaa madaxweyne farmaajo waa madaxweyne u horreeyey ee dowladda federaalka soomaaliya ee safar dheer oo dhulka oo ilaa iyo hadda la filayo inuu ku dhawaado deegaanada adaynu ka dhawaajinay ayaa la filaya haddana si aynu ka warqabno goob kastoo togo aad baa loogu soo dhaweynaya dareen noocoyo ayuu bulshaweynta soomaaliyeed u muujinaya iyo dareenka ay ka qabaan reer somaliland waxay ahayd safar taariikhiya ahayd safar muhiim uu sameeyey madaxweynihii farmaajo wuxuu tegey shacabkiisa u tegey puntland degan wuxuu kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaaleed culamaa diinka haweenka odayaasha nabadoonada isinada safar la qorsheeyay hadda midkaa markuu ka taga mid labaad waxa waaye wuxuu maraya dhuusamareeb u tegaya halkaas waa safarkiisa caadiga ay ku booqanaya amba ku indhendhendhaan ay ahayd laakiin nasiib darro waxaa ah safarkiisa waxaa lagu soo aadiyey dagaal ka jiro meeshaan xadka labadan isku dhegan maamul isku dhegan sool dagaalkaas waa dagaal kolley lagu soo qaaday siday puntland sheegayso waardiyihii dadkii meeshaa joogay xadka joogay ujeedda loogu soo qaado wax kale ma ahayn waxaa jira wasiir ka tirsan dawladda dhexe ee tegay dadkiisii deegaankiisii tagay jira meelahaas baran iyo meelaha tegay ma tegay sool iyo sanaag iyo meelahaas kale ma tegay tuuladii uu ku dhashuu tegay isla markiina waa kasoo dhacday iyadoo lagu marmarsiinaya dadkii deegaanka ayaa weerar kusoo qaada waxa dagaalamay maaha labada maamul maahan waxaa degeen waxaa dagaalamay labada beelood ee meesha ka dhawaa dagaalantay
waxaad dareemaysaa dhimashada inay iska yareedba wax dhinta iska yar yihiin marka anigu dagaal maanta soomaali isku qaadaa bes disho aniga kuma faraxsani anigu kolle wax igu caqli ah maanta somaliland iyo puntland maanta in isdilaan xilli isdilo lama joogo 2018 la joogaa waxaan rajaynayaa in dagaalkaas inta la dagaalami lahay dadka isku haystaa wax kale ma ahani waxa waa dadna isku deegaan waayo waxa waaye markii la fiirsho territory ha la fiirsho isku deegaan waa dadna isra isku yihiin arrintaas waxaa la rabaa cidday rabta ha noqotay arrintaas in la dhex gala loo baahan yahay odayaasha labada dhinac loo isla hadlaana loo baahan yahay xal ma noqonayo ciidamaan usoo diraynaa oo waa laynaynaa amba waa dilaynaa amba waa burburinaynaa kolley labada dhinac xal waxay tahay in odayaasha dhaqankii deegaanka dadkaasi u dhashay yaa la isticmaalaya oo labada dhinac la isticmaalaya waa ilmo iyo dad wada dhasheen marka waa dagaalkaasi waa dagaal la siyaasadeeyo as leedahay lagu soo aaday madaxweynihii soomaaliya lagu soo aaday xilliga puntland imaanayay laakiin ujeedada waxay tahay yaa siyaasadeynaya marka haddii si kale loo dhigo yaa carqaladeynaya waxaa carqaladeynaya cidda soo qaaday weerar kusoo qaaday ka dhigayso inuu madaxweynihii farmaajo maadaama uu dhinacaas yimid xilligaas munaasabada kusoo aadiso dagaalkana suubinayso soo weerarto tukaraqa waxaynayso sababtoo ah staafkii joogay controlkii meesha lagu laayay lagu dilay marka waxa waaye waa ujeedaa dagaalka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo somaliland u ka yimid maaha dhinaca wax ka baxa maahayn marka waxa waaye dagaal xal maaha calaa kulli xaal waxaa nabadda wax loo qaato wax la dhaha mal anigu haddaa inaan dagaal ku baaqo waxa khatarro waa sababto qax waa naqaanaa dil iyo maanta iyo barakicin dadka isku sameeyeen waa garanayna lakin waxay la tahay inayna xaq iyo xalaal ahayn in maanta dad soomaali la kacsho waxa waa dadkaas deegaanka ahay dadna waa isku deegaan dadna waa isku isireen waa in labada lugood meel isu raacsan maxamed wal waxay waxaan jeclahay madaxweynaha hadalhaynta u badan ee la hadal hayay laftigeeda waxaa kamid ahaa inuu ku dhawaan doono aagaga sool iyo meelahaas gobolkaas maxaad arrintaas arrin jirta ma aha madaxweynaha soomaaliya tegi maayo meel dagaal ka socda xabad ka socda kula dhawaami maayo laakiin waxa waaye meelaha loogu talagal shirarkiisana waa meelo diyaarsanaayo hore loo cayimay ahayd hadday ahaa lahayd meel odayaasha lagu diyaarshaeyay dhaqanka asagoo dagaal shaqo ku leeyahay ma jirto 3 maalmood iyo berina waaba ka tegaya meesha 2 maalin 3 maalin booqasho ayay ahayd maantana inta soo wada puntland kaa la yidhaahdo hub iyo lacag siiyo taangi siiyo orod dagaal dhiba sababta dagaal waan garanaynaayo waxa waaye waa kii la daashado waa idinku waxaa qabto waxaa laga yaabaa inaa xogaan dhasatay inaa dhici karto laakin anigu koonfuradaan nahay ama soomaaliya aan nahay waxa waa dagaal waan naqaanaa faa'iidou leeyahay meel ku dhamaanaysa ma jirto dadkaas waa dad wada dhashay isin iyo abti iyo adeer ilma adeer wada ah waa in xalkooda nabad lagu helaa dagaal xatiri maayo inta keliyaanu doonaynaa inay fahanto soomaaliya waa intaas weeyaan somaliland mar raba dagaal diyaar uma aha somaliland gacan nabadeed bay doonaysaa inay xuduudaheeda oo dhan kula dhaqanto intaanu doonaynaa inay fahmaan keliya waxa weeyaan inay somalilandna weerar may qaadin xuduudaheedii bay weli ku jirtaa iyadaaba difaaca oo dhulkeeda qayb aanay ka talinin marka inta keliyaanu ka doonaynaa inay fahmaan waxa weeyaan dagaal dooni mayno nabad baanu doonaynaa wada noolaashiyaanu doonaynaa inay ummadda wada noolaataanu doonaynaa just xuduudka iyaga un ka tago xaggiina soo istaagaan anaanu xagga iyaga istaagno deetana haddaynu doonno aynu idhahno war xuduudkanba ciidama dhigan mayne dadka ha isku gudbaan laakiin xariiqdeenna inaanu maamul idinka tirsani aanu kasoo gudbin waa tacaddi weeyaan waa aggression weeyaan waa gacangelin iyo dagaal la caddeeyey weeyaan ninka wasiirka xamarka ahi markuu soo gelayo waa dagaal cad oo lagu soo qaaday sida sharciga adduunka uu qorayo qaranka isaga ah xuduudaha uu ka dhawaajinayo maxamed dawladda federaalka soomaliya ma aqoonsan tahay xuduudahaas waa xuduudihii wakti hore la soobiyi waayey waxaa laga yaabaa xuduudaha ina qaladaad fara badan dhici karaan qaladaad badan in la jiraan dhici karo waxay u baahan tahay xuduudahaas la jeegareeyo talabaad hadda xuduudaha ma lasku haysta waxaa lasku haystaa gobolkan dadka degan yihiin sool iyo sanaag dhankoo raaci lahay lasku haystaa ma wuxuu raacayaan dhankaas waqooyi raacayaan ku deegaanka yihiin ma waxay raacayaan dadkii istarka iyo abtiyaasha walaalashooda cid bay raacayaan dadku waxay u baahan yihin xalay u baahan yihin la jeeyay u baahan yihin ma aha midna inuu halkaa aado midna puntland aado midna somaliland aado ma ahan waxa waa dadku waa inay leeyihiin la dhex galaa oo la mideeyaho xadkaasi la qiimeeya oo dadkaasi la jiheeya marka waxa waaye wax badanaa isku qasan oo u baahan in wakti la siiyo u baahan laakiin inta ka sokayso intii xadadkooda la cadaynayo oo la leeyahay balukaas misirkooda raacaya qaab noocee loo cadaynaya marka haddii somaliland way waxaa muhiima inaynu wax badan saafno moogta haddii somaliland ay leedahay xuduudadayadii ingiriisku au dhigay anagoo dawlada ayaanu maanta rabnaa in ciidamadeedu ay gaadhaan ayna ka taliyaan adiguna hadda si kale udhigayso ad leedahay dadku waa dad walaala dad wada dhashay marka miyaan waxba isa saaran dadka deegaanka maya xusaar dadka deegaanka laga rabaa annaga hadda wax noo yaal maaha dadka deegaanka degan ee meesha gobolkaa la isku haystaa laga rabaa inay isugu yimaadeen meel alla meesha ay jiraan lugahoodana meel isku aadiyaan maahan midna inuu xagga
aado midna halkaas aado labadooda afkaar kala duwan qaataan halkaan dagaal dhexdooda ku suubiyaan ilmahooda la barakacay maanta waxaan hubaa in Somaliland maanta cunugka qaxaysan jira ragga qaxayo ama la dhibaateynayo ama la laynayo waa dadka gobolkaas degan waxay u hayaan Somaliland ma jirto qoladaana waxay haysan ma jirta ayaga waxay tahay in dantooda iyo lugahooda meel iskugu geystaan marka anigu haddaan ku yiraahdo ayaa gardar laba walaalo anigu waa isma yihiin laakiin waxaan is leeyahay weli lama gaarin xilliga Somaliland iyo soodinteedii waxeeda loo sameyn lahay ay noqon lahayd dawlad madax banaan oo gooni oo meel tagad waa ismagacaawda la dhigi karnaa ma hadda dawladda daba dhigi karno waa ismagacaawda dhigi karno wax kale ma dhigi karno marka inta lagu heedo sanaag isku geysanayaan meel oo ay noqonayaan waxay la tahay in Puntland ka istaagaan Somaliland ka istaagaan wax dagaal ah meeshaas laga soo baaqiso saabis way khadka telefoonka horeeyay ayaa fursad siin maxaad ogsi waraalo hallo assalaamu calaykum waalaikum salaam wa rahmatullahi way walaal si toos aad ugu jirtaa adoo magaca ku bilaabaya barnaamijka la socota Soomaa walaal magacaygu Shaahin waaye waxaan doonayaa inaan saddex su'aal weydiiyo inankan Somalilanderka way soo gaabi waxa weeyaan awalan dadka walaalaha reer waqooyi miyay ka yihiin maadaama ay maamuli jirtay Kenyaati oo qaadan jireen lacagtii Soomaaliyeed ama ashooqa sidii ka bixin jiray miyay ka yihiin dad walaalada oo Soomaaliyeed in laga maamulo meesha miyay ka yihiin tan kale 27 sano baan burbursaneen Somaliland haday dawlad buuxda awood u leh ay tahay in ay stop garayso hawada waxa marayo I don't understand in any way why ay iyagu soo celin waayeen intaas ugu dagaalan waayeen ku Soomaaliya isku mashquulsanad ayaga isku sii jeedo why iyagu qof oo wax maamulaya in iyagu soo qaado ay hargeysa laga maamulo why iyagu u sameyn waayeen taa u dambaysa soo sheegay waxay tahay dadka waxay tahay waxaan aragnaa media ka aragnaa xisbiyada Somaliland saddex مسؤولين أو سياسيين وغلال إبا ما أعرف تسميه Soomaali oo dhan iyo saddex yani hal reer ah miyaa noqoni karaan inay doodaan marka hasi aan gadaal isku noqon dadka Soomaaliland walaal aad baad mahadsan tahay saddex su'aalood oo culus maxamed oo afayeenka xisbiga kulmiye Soomaaliland ayaa la fadhiya ee takoobad miyay ka xun yihiin in Soomaaliya la soo wareegto waan ka xumaa inta magaceedu inooma sheegin horta ka xumaani ma jirto walaalo heshiis baa la gaaray heshiiska wax lagu heshiiyey Istanbul baa lagu heshiiyey wax lagu heshiiyey in hawada Soomaaliya iyo Somaliland la isku soo wareejiyo isla markaasna qalabka Hargeysa la dhigo gudi isku dhafa la sameeyo deetana gudidaas sida wixii ka soo baxa loo qaybsanayo ay ka shaqeeyaan iyadoo tii la joogo ayay dawladda Soomaaliya kaligeed la wareegtay taladii la wada lahaa lagu soo heshiiyey ay qaaday su'aal baa meesha imanaysa idinku isweydiinaysaan idinku ma waxaad ka xumaydeen haddaad Soomaaliya tihiin in heshiiska la fuliyo oo Hargeysa la keeno ayaad ka xumaydeen annagu kama xumin waxaanu annagu aanu aaminsannahay in heshiiskii iyo wixii la wada qortay aynu ku soo wada noqono cid kaliya maadaama aanay qaadan karaynin su'aasha qaybteeda qaybteeda kale maxaad intaas oo dhan ula soo noqon weydeen yes annaguna lama soo noqon karayno Soomaaliyana lama soo noqon karayso yaan been la isu sheegin annagu waxaan la sugaynay in dawlad Soomaaliya ay timaado annagoo midaysan ama aanu ku kala baxno ama iyadoo midaysan aanu meel u wada wareegno wax la isku fahamsan yahay inay meesha ka soo baxaan tiina way timi Istanbul baa lagu heshiiyey go'aan baa la gaaray dawladda farmaajo bedeshay ilaa maanta Security Council-kii resolution-kii lagu wareegay walaal meeshiisii buu taagan yahay cid la wareegtayna ma jirto saddex xisbi oo isku reera su'aasha wada maysa Somaliland waa dimuqraadiyad weeyaan dimuqraadiyad baa la qaatay cid walba xaq bay u leedahay inay xisbi samaysato cid walbana waa la sameeyay ururada la soo galay waa laga soo gudbay cidii soo baxday baa soo baxday ama walaalaha aadan ama isku hooyo ha dhasho cidii loo codeeyay ee meesha timi ee xisbigeedu soo baxay ayuunbaa u tartamaysa madaxweynenimada marka Somaliland waa dal dimuqraadiya dadku waa kuwa dadkooda dhan waa xaq bay u wada leeyihiin inay tartamaan laakiin marka ugu dambaysa waxa kala saaraya waa codkaas iyo cidii ku guuleysata soo dhawgudun mar raba inaan ka hadlo waxa ka qoseeyo iska yaryihiin maanta saddex xisbiyo walaalo ah inay u tartamaan in kale waxay galayaan iska jiray sababtoo ah ayaga iska la choice-ka iyo iska leh ciidan kale hadii loo diido oo dacwad keenaan waa macquul hebel baa dacwadaan dheeleen laakiin waxa ka sokeeyo waa iska afdheeri taa markaan ka tago midda kale ee qoseynaysa arrintan waxay tahay anigu waxaan jeclahay in Somaliland ogolaato arrintan maanta oo aan soo wareejinay maadaama Kenya laga xukumi lahay halkaas lacagtii Soomaaliya laga gorbi lahay waxay ku leeyahay laga sii lahay hadda si lamid ah
waxay leeyihiin hadda waxal waxay ku leeyihiin oo Kenya markay shalay joogi jirtay waxay lahaayeen ka badan ay lahaanayaan waa dadkoodii loo dhiibay oo la keenay Muqdisho ah waxay leeyihiin haddii horumarin tahay haddii shaqaale tahay haddii shuruud tahay wax walba qaybtooda ka qaadanayaan waxay Soomaalida kala ka heshay qaybtooda mid lamid ka qaadanayaan anigu maanta ila maahan wax kay laga xukumo lahaa haddii Soomaaliya soo qad aad u taageeraan u soo dhaweyn lahaa وين سؤال إن بدن موضوعا وين كسر نقطة طبعا سعادش هودا يلا وريجي ده موضوعا كسابسن إن بدن تدخل حلقة بين مسكحة كان حقيقي سامي سويديان إن Soomaaliya markii ay wada xaajoodka la galaysay hay'adan u qaabilsan hagista hawada Soomaaliya markasta ma qayb ka ahayd mise Soomaaliya oo federaal ahaan iyo dawladdu markasta la galaysay hay'adda UN u qaabilsan Soomaaliya sideedaba dawladda Soomaaliya federaal waa hadduu rabo inuu adeegkiisa ka fiirsado ama abtigiisa ka fiirsado meesha waa fadhiyaan maanta Soomaaliya markii la yiraahdo ama dawladda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhammaan waxay matashaa ummadda Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa 4.5 waayo qabiil maanta ka maqan ma jiro hadduu rabo jifadiisa xataa waa ka helaya maamulkan hawada ayaga mas'uulka ayaga wadaan marka hawshu baa loo qabtay mooyay hadda Soomaaliya meel ka aad waayahay in telefoon baa ku jira muhiim ah leeyahay halo salaamu calaykum calaykum asalaam wa rahmatullahi way adu magaca walaal ku bilaabaya barnaamijka gudagal waa nuur malayaha nuur ha ku jooga talo waxa la dhama jooga nuur soo dhaw haye wad la socota barnaamijka Soomaa yow anu waxaan u haystaa nimankan reer koonfureedka inay ku dhaceen hog loo qoday way xogaa sharaxaad ka bixi waxaan aaminsanahay nimankan ICAO waxay doonayeen marka hore inay ku wareejiyaan hawada Soomaalida India iyo Seychelles way diideen waa gatay markii la diiday Soomaalida diiday ka hadashay ayay yiraahdeen waaye barta Soomaalida qanciya marka marorsigan ay wada koonfurtu wada isleedahay waxba ku qabsan karaysaa oo waxba marorsigan karaysaa tii uma fududaanaysaa hadda marka isku qabsanayaan la isku qabsanaa hawadii wayna ognahay adduunkan cidana dadkeeda iyo ama diyaaradda iyo dadkeeda gelimayso khatar gelimayso marka waxay noqonaysaa in meel kale loo wareejiyo la isku qabsado meel kale loo wareejiyo oo laga waxa ku qadaa way aad marka anu waxaan lahaa inay nimankan koonfurta iska daayaan waxaan isleeyihin maroojinta dawladda la wada samaystay shalamayna dhalan laba gobol baa isu yimid way nuur aad baad mahadsan tahay nuur fikradiisa waa uu soo gudbiyey korneyl kuna saabsan arrintaas ahayd in wada hadal laga galo maxamed hadalka dabcan soo dhawo runtii arrintan nuur ka hadlaya wataan ka hadlayay waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa marka dambaynu halkan iskugu soo noqonay iyadoo hawadii Soomaaliya la shadawn gareeyo la xidhay inaynan halkan ka doodin waayo khatarta waxaan ay leeyihiin dadku markaan galanayeen ay dhuxul daba ku ciyaarayaan waa mashaakil especially dadka koonfurta Soomaaliya khatarta ay u leedahay iyo khasaaraha ka soo gaaraya marka aanay qiimeyn karaynin laakiin nin iska dhigaya nationalism intuu halka soo istaago oranaya hawada niga 7 sanadood maqnayd baan soo celinay kan weeyaan laakiin waxa ku hoos tuuganaan aanay ogeynin waa mashaakil jira weeyaan oo waxa la yaabay adduunka la yaabay umad la yaabay iminka aynu ka hadalno waxay yiraahdeen hawada la soo wareegnay hawada la soo wareegan miyay jirtaa hawada marka la soo wareegayo process baa dhici lahaa waxay ma leeyahay hay'adda ECAWE gacanta ku haysaa inay timaado inay tiraahdo maanta wixii ka intaan hay'addu aan iman Security Council resolution-kii in la bedelo Security Council-ku inuu ka fadhiisto inuu qiimeyn ku sameeyo xaaladii Soomaaliya dib hawadeeda ma u qaadan karaysaa la baas gareeyo kadibna process laakiin baliyaha ku dhaareenin intuu meel soo istaago iska oranaya halo ma maqlaysaa number 5 aan kugu maqlayaa way Soomaaliya no way guulaysan runtii waxaan arkaa anigu joog baa waxaan ka hadlaynaa inuu riwaayad uu ka dhigayo budawaalkay uu leeyahay wax jira meesha ma jira ma la soo wareegtay awadii qalabkii bala keenay oo air navigation system-ki xamar ma la keenay akawa alaabo socotay ma la qabtay 9 container saldhigii ma la sameeyey farsamayaqaanadii raggii shaqaalaha ahaa iyo shuruucdii hadda ma la dhisayaa waxyaabo badan hadduu yiraahdo wax jira ma laho meesha riwaayad bay sameynayaan hal isugu annaga u shaqeynayna markii loo diyaarsho oo wixii systemku uu arko asagu waxa kaliya hadda sheegay muhiimadda ay tahay waa dacwadoona ka bacdi Soomaaliya laga qaado dowlad dib aan Nairobi la wacdo wuxuu ka hadlayo ma dhahayo aniga la qaadanayo amba adiga aan ku daynaya ma he
haddaad i diiday oo iga qaadatay oo meel kala geysatay adna waa ku dacweyn doona waa lagaa qaad waxaad moodaa inuuba jecel yahaaba intii muqdisho la keenayo inuu ka jecla nairobi meesha lagu hayo anigu taas waa ka duwanahay waxaan jecla maanta ta wixii maanta adigu aa haysateen inuu ilaah kuu zaa'idisho in ka badan ilaah ku siiyo laakiin waxa waaye arrintaas waxa waaye dhib iyo halganaa loo soo maray muddo badanaa loo dacwana akaawadu sheegaa kuwii saxiixa ayay hayay muddadii lala wareegaayo waa isku daya inay qaataan oo sidaad jecesha oo kale qaataan in nairobi u qaadaan laakiin oo suurtageli weyse waad arkaysa saxiixa ay sameeyeen kadib qalabkii in la keenay kadib la tijaabinayo waxoo dhan haddaad tiraada been waayo tiraada ugu dambaysta adigu dacwaad samaynaysaa dacwada kolley haddii maanta la cesho nairobi la geeyo anagu shal waa noolaan jirna maanta waa noolaa waxa ka hadlays maahan anaa laisoo wareejiyo aniga aan haayo ama meel dhexal la keeno haddaan dhihi lahay xataa waxbay ahaale anagu isku haysanaayeen dhexdeena meel ah la keeno magaala noo dhexaysa la keeno oo kale oo adigana ka soo tagta anina iga soo tagto magaalada dhex aan ku heshiin oo kale meel xad ku sheegaayo oo kale waxbay ahaaleen laakiin haddaad ma haysatid haddaad haysatana waa ku dacweyn doona waana kaa celin doona wuxuu ka hadla waa intaas anigu xaasinimada waa laga fiican waxaan ku leeyahay waxaan anigu leedahay adigu qaado waxaan anigu leedahay masiirka maahan haddaan in kaa qaato xataa waa laba kaa qaato inaad ka jeclaato Kenya Uganda iyo Ethiopia in la geeyo inaad ka jeclaato ma waa inaad tiraahdo anigu ma waaye war waa halkay kala laakiin okay way maxamed odaga raalay korneel wuxuu leeyahay sifihii sharciga ahaa ee aanu wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya dawladda federaalka ay ka baxday saasaan aan ugu aqoonsanay kama sharciga markaa u dhigtay kama baxeen isbedelaad jiray dawladda hore waa heshiisyada wada waxay tii Sheekh Shariif Xasan Sheekhayeed tan bilow ahayd muddo sanad xataa madda waxay joogto waxa waaye dib u heshiis waxaan wada hadalkii socday Turkiga waa si baqaada inaan sida amisla dawladda waa si wadaysa hore isu soconaysa laakiin hadii laga hortagay la yiraahdo waa la joojiyo alaabta hadda ka soo qaaday bari waa la qaadi karaa waa la geey karaa Hargeysa waa la geey karaa Mabruuc waa la diji karaa dhima gacanta Ethiopia waxa ka soo bixin Kenya ka soo bixin bilowgii hore qalabkana muhiim waa inta kale muhiim ma inta kale waa shaqaale ku shaqeey lahay iyo shuruudii lagu shaqeey lahaa qalabka waa hayna gacanta ku hayna hadii ila qalab ba arkin ma jirto rawaad waa anigu hay yiraahdo annaga nolol kale ama meel dhaxal la keen waa fiicanta Soomaalnimo annaga ka hadlayna ma Soomaaliland iyo Soomaali ka hadlayna Soomaalnimadan ka hadlayna taas ka way wax dhanbe alaabta meel dhaxal la keen ama anaga naloo dhibo ama ku heshiin waa wax la garta laakiin haddaad anagu naga diideen oo la diideen waxay waa dacwadoona Kenya lagu celin doona waxaad ka faa'iideynaa leedahay anigu waa laga fiicaya isleeyahay horta wali intaynu dawladda aynu ku nooleen maana arag dawlad burcadnimo ku faanaysa sababtu ay tahay qalabkani hay'ad baa lahayd transit buu ku marayay wala la soo dego si burcadnimo ayaa loola degay taa laftigeeda waxay tahay moogtahay wax laga yaxyaxo dhinaca kale waxay kuleeyihiin heshiisyadii hore la galay waxba kama jiraan oo dawlad kastoo cusub dawlad kasta markay timaado iyada keedii halkeeda ka bilaabanayso war adduunku sidaa uma shaqeeya qalbiga furaan leenahay adduunku waxa uu ku shaqeeyaa in la xaqiijiyo wixii dawladdii ka horeysay ay qabatay in la yidhahdo taankiyo wixii wanaagsan horey loo sii wado laakiin maalin walba anagu diyaar uma nihin haddaanu Somaliland energy-gayagana ku lumin mayno dawlad kastoo timaada inaanu zero kala bilowno heshiis baanu maanta galaynaa tan farmaajo berri markay baxdo mid kale ay timaado ay tirahdo tii farmaajo waxaad la gashay waxba kama jiraane tan cusub la qabsada taas adduunku kuma shaqeeyo heshiisyada adduunkuna sidaa kuma shaqeeyaan lama dhihin ma jir lama dhihin burcadnimada waa laga fiican yahay aflagaadada waxyaaba qaarkood waa laga fiican yahay waxay tahay macnaha waxa waaye hore usii amba qaadaysaa dawladda jirto waana soconaysaa xaaladaha jira awgeed iyo waxa kale loo galshmoogiyay wada hadal waa sii soconaysaa aad baad maasantiin way khadka xiga ayaa sinaya halo salaamu calaykum وعليكم السلام. way waa soo dhawaada magaca ku bilaabaya أحمد بريستول والله. أحمد haye barnaamijka waad la socotaa soo ma صفيع. way haye guud kala soo dhawaada وما حسنت خيارات ماشي فلسطين والسلام يا horta dhibaatada ugu weyn oo meesha ka jirta waxay tahay dadkan oo isku sheegaya inay Somaliland yihiin in ay yihiin gobol Soomaali kamid ayna dawlad ahayn maxaa hadii ay dawladii mar hore la aqoonsan lahayd marka waa in ay ka kacaan hurdada ay ogaadaan in ay yihiin gobolka like maxaa la Boosaaso Puntland camal inay yihiin مثلا ama Jubaland biyo dhaca wala u dhaca marka marka hadii la keenay qalabkii diyaaradaha laga hagaayay Muqdisho la keenay waa wadankii Soomaaliya ayaa la keenay marka inay Soomaaliya la tartamaan ma waa gobol Soomaaliya kamid taariikh emotion waa ninkan la dooda waa nin oo emotion personally Ahmed iga raalaha Ahmed personally waxaan jeclahay inaynu iska dayno laakiin mawduuca inaynu guda galno arinta hawada Soomaaliya ayaa muran ka taagan yahay saad maqlayso doodo marka fikirkaaga soo gudbi oo soo dhaweynaya laakiin wixii personally waxaan jeclahay inaynu iska reebno
ها may aflagaadada reer koonfurta reer muqdisho ma aha meeshan soomaaliya waa wan maanta waa mahadsan aad baad walmaadsan tahay maxamed umalayn maayo su-aal maskax intellectual ama qof fariida inay su-aalba anigu ma arko marka waxaan wanaagsanaynaa way okay aan kasii gudbino marka waxaynu jecelnahay marka mawduucyada dabcan hadda ugu muhiimsanaa un waxay ahayd arrintaas hawada ku saabsan iyo safarka madaxweynaha oo dabcan siyaabo kala duwan soomaaliya iyo somalilandba la ogaakay karaalaada arrinta ku saabsan xagga dooda puntland iyo somaliland oo ilaa iyo hadda mas-uuliyiintooda labada ugu sarsareeya hadda xitaa madaxweynaha puntland cabdiweligaas ay noqon lahayd iyo mas-uuliyiinta somaliland ugu sare labaduba ilaa iyo hadda ay isku goodinayaan maanta waxaynu ka warqabnay sad ka dhawaajisayba xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo somaliland inuu dabcan isaguna uu hargeysa joogay arrinkaas uu ka hadlay in la damiyo haddii arrimahan ay sidaa kusii socdaan oo dadka deegaanka degan tukaraq iyo gobolka sool oo ay sii dagaaladu ay sii aafeeyaan maxaad is leedahay dowladda federaalka soomaaliya kaalinteeda waa ay kaga aadan tahay iyadoo laftigeeda somaliland ay ku eedeynayso arrintanaba inay ka dambeyso dowladda federaalka soomaaliya somaliland lama qanci karo sababtoo ah waxa waaya targetka iyo meesha u socoto waa dheer tahay marka inaan sugno ilaa iyo intay janiskeeda amba dhamaanayo amba iska adkaana waa inaan janis siinaan qofka ogsoonta janis inaan siinaa fiican laakiin waxaa waajib ah amba dowladdan sideedaba waajib ku ah dowladda soomaaliyan ka hadlaya inay ummadaas soomaaliyeed lagu dagaalamayo muddo ka bacdiba dagaal ka bilaabana waxaad maqlaysaa si loo joogo dagaal baa bilaabda sool iyo sanaag war sool iyo sanaag waxay noqotay meel lagu gorgortamo oo dagaalka laga soobiyo oo xoogaa laisku soo shaac bixiyo si idaacadaha qofka looga sheegsheego anigu waxaan leeyahay dadkaasi ciidamo iyo islaayaan iyo technica loo diro amba laisku goodiyo la yidhaahdo waisdilayna dabcan waa ogsoonahay inayn ayaga ilmo uga dhimanaynin in askariga loo dirayo halkaa laga dira ama mid kale xagga laga soo diray dadka ku dhamaanayo waa dadka reer sool iyo sanaag waa dadkaasaa laga rabaa inay lugahooda meel isku aadiyaan dan uma aha inay habeenkiina garowa aadaan maalintiina hargeysa aadaan waxaa dan u tahay inay intay midoobaan labada dhinacna iska joojiyaan wixii xaala dhexdooda ka yimaada dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaya inay taageerto arrintaas sidii ummadaas loo miday lahayd dantooda loo qabsan lahaayeen dagaalada loo joojin lahaa dadka deegaanka degani siday doonaaba haw kala qaybsanaadaan waa arrin iyaga gudahooda iyo salaadiintooda iyo deegaankooga u taalla arrintaas in badan waynu ku celcelinaa laakiin markaynu eegno kaalinta dowladda federaalka soomaaliya ama sool iyo sanaagle ama areada hadda dagaalka uu ka dhacayo maxay tahay inay ku dadaasho inaan dadkaasi waxay dhibaato u keenaya amba influence u keenaya aan lagu faragelin la qaboojiyo dagaaladaas amba idaacadaha laga waaniyo la yidhaahdo war dagaalka joojiya haddii jiraan qalad jirana si nabadgelya oo tartiiba loo dhameeya ila tahay dowladda soomaaliya xal kale kagama aadan dowladda soomaaliya waa dib u heshiisiin waayo marka dib u heshiisiinta inay qayb ka qaadato oo dagaalkaas in la joojiyo u baaqdo xataa dagaalka afka xataa la joojiyo gaar ahaan wixii maqlaayo haddii qaar maqlayo inay dagaalska wada hawada laakiin wixii maqlaayo amba puntland oo kale ay tiraahdo war afka xataa ka joojiyo dadkaas nabad uga baaq taas anigu saas waajib ila tahay dowladda doorkaasi ku leedahay inay waawaan iyo nabad ka raadisa meeshaas aniga waxay la tahay xalku waxa uu ku jiraa inay dowladda soomaaliya faragelinta qaawan ay ku hayso ama tadadban ay ku hayso xuduudaha somaliland inay faraha kala baxdo somaliland waajib baa ka saaran dadkeeda inay serviceka iyo horumarka gobolada kale ka tis qaaday in la gaarsiiyo dadkaas maaha dadkaasi inay noqdaan dad meel ku xidhan oo la yidhahdo xuduud lagu muraysan yahay bay joogaan ee aqoontii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii caruurtoodu ay ka hadhan maaha somaliland waajib dastuuriya ka saaran somaliland way ku khasban tahay inay dadka ay gaarsiiso serviceka iyo horumarka waddanka intiisa kale ka socda marka waxaa kaliyan xalka u arkaa waxa weeyaan inay maamulka soomaaliya iyo maamul goboleedyadiisu inay faraha kala baxaan xuduudaha somaliland dadkuna ay si walaaltinima iyo nabadgelyaha ay ku joogaan somaliland diyaar umaha inay meesha dagaal ku qaado somaliland diyaar umaha inay cidi ku dhimato meesha somaliland garowga iyo meel kale toona burburkeedu wax laaliya wax ugu jiraa ma jiraan waxay u arkaan dad kale walaaladooda dhaawac u gaaraya u arkaan laakiin dadkaasina inay fahmaan xuduudkooda kala baxaan deetana si walaaltinimoa u qabow la wada deganaado taasaan arkaa inu xalka ku jira wahagaag aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin daawadeer kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed cabdi raambe oo ah afhayeenka xisbiga talada haya somaliland ee kulmiye iyo corneyl cabdullaahi cabdi maxamed dule oo isagu igala qayb gelayay barnaamijka madasha kalsan corneyl cabdullahi waxa uu ahaa dabcan sayn hore usoo sheegnay saraakiishii hore ee nabad sugidda ee soomaaliya barnaamijkuna wuxuu ahaa barnaamijkii madasha kalsan oona toddobaadkan ku qaada dhigaynay guudaan ba arrimaha ka taagan arrimaha xagga hawada soomaaliya oo sinu ka warqabno dhawaantana dowladda federaalka soomaaliya ay shaacisay inay gebi ahaanba si rasmiya ay ula wareegtay sidoo kale barnamijka waxaynu kusoo qaada dhignay safarka madaxweyne farmaajo
iyo guud ahaanba deegaanada gobolka sool dagaaladii ka dhacay iyo somaliland kaalinteeda dabcan iyadu ka geysatay arrimaha ku saabsanaa xagga la wareegista hawada waftina u dirtay dhankaas iyo canada si ay kaalinteeda ay uga qaadato xagga la wareegista hawada soo saaraha barnaamijku waxa waa anigoo faysal aadan micala toddobaadka dambe intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantayo waxaan isku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu